عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا جوائز يمركله وحمانتي لجوا قدنا ولك عمر برنامج كانوا قبلتين أسبوع لها دبينا أوصي ودنا وحمانتي صوب غري أما سوء أدني هذا اللي ربنا أوصى كحني ما نرني رأي إيماني أو جدا سد قرح دعدي جونا وقت قرح دعيسي وحمر كمان تقول سنة إنا جالس كفاية إيدي سنة أو حياة يرد هو فايدينه عايز ويدينا دوله يدمو وحياة ما تكون هذا القدم كده وحياي ومع فائدة أولادها الماء وقت والدتي إلى خاتان يا عمر كسر ده فليتفضل. aad baa mahadsan tahay aweys barnaamijkan barnaamij xiiso badan waa dad badan ayaa la socdo waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala in laga faa'iidi doono insha allahu tacaala barnaamijyada noocaana maadaama hadda xilligii samarka la galay oo maaragtay dadka ay yani iskuulaadkii ay xirnaan doonaan waalidiinta ay waqti badan la heli doonaan carruurtoodii waxaan ku talin lahayn inay maaragtay waqti la qaataan carruurtooda ay banaanaha sida parki oo kale Mount Rainier oo kale ilmaana weligood imaanna laga yaabo inay jiraan magaalada degan Space Needle oo kale inay tegina laga yaabaa meelo badan oo ma aragtay loogu talagalay carruurta inay fan ku qaataan in carruurta tegin marka waa muhiim in carruurta ma aragtay waalidka iyo ayaga isla helaan waqti keligooda oo ay ka soo dhaxbaxaan bulshada guriga meelaha la midka ah oo meel ka baxsan la soo tagaan xataa waqtigaas way ismaqli karaan way isdhegeysan karaan waxba isku sheegi karaan marka aad bay muhiim u leedahay in carruurta waqti la qaato marka hadda ka soo qaad waalidiinta badan hadda magaaladeena ku badan ilaahay khayr ha siiyo waalidiinta badane laakiin waalidiintu waxay badan yihiin hooyo kaligeed ilma aabihi mala joogo marka maxaa la samayn karaa si aabihii hooyadii ilmaha waqti u wada qaataan maxay samayn karaan labada waalid taas way fududahay waxayna ku fududahay barnaamijyada dawliga ah sida hadda child support oo kale systemka oo kale hadiiba aabaha uu nolosha ilmahaas ku dhex jirin uu la nooleen uu laakiin child support bixiyo ama waalidka ama heshiyeen oo labadooda ku heshiyeen inay wax yani uu siiyo carruurtiisa aabaha noocaasa waxaa wanaagsan inuu asna maalin waqti la qaato ama waqti samarka ka mid a waqti la qaato uu la soo baxo meelahan oo kale la yimaado ama maalinna hooyada ay wadato oo carruurta meel la aado marka labadoodiina waqti bay la helayaan laakiin mid baan waaninayaa oo ah waalidiinta isku dayaayo khaasatan hooyooyinka inay aabaha ka ilaaliyaanba ilmahooda inuu arko yani dhibaato caafimaad bay u keeni kartaa dhibaatooyin fara badan bay u keeni kartaa yani inay xabsiyada ku dhammaadaan bay u keeni kartaa daroowooyinka inay iska bartaan bay u keeni kartaa saaxiibo xun inay helaan bay u keeni kartaa laakiin marka ay aabbahood saaxiib leeyihiin aabbahood ay arki karaan waa role model ayaga ma aragtay waqti ay la qaadan karaan marka waxaa wanaagsan in waalidka labadaba ay kala qaybsadaan oo ma aragtay qofba ma aragtay co-parenting wax la dhahaa jiro isla yani waalidiinta oo isla waalid yani carruurta ma aragtay midba mid mar uu qaato uu la carruurtiisa la kulmo la shaqeeyo yani homework kala shaqeeyo waqti la qaato yani sidaas oo kale marka co-parenting systemka haddayna aqoonin soomaalida waxaa wanaagsan inay raadiyaan meelaha laga helo ama ay yani dadka soo wacaan si loo caawiyo insha allah maxaa kale marmar dhacdo ninka isagoo rabo inuu ilmihiisa helo ama ka soo qaad wuxuu bixiya ama waxba bixiyaba laakiin magaalada isla joogaan laakiin maxaa laga yaabaa hooyadii inaysan u ogolaanin markii ilmihii aabihiin magaalada uu joogo san ilmihii arki karin ama kaba soo qaadbo aabayaala jira ayay go'aan qaato inaysan hadday naagta kala tagaan ilmihiina arkeenin marka aabayaashiis maxaa kula talin lahayd si naagta hadday kala tageen ee ilmahoodan waqti usii geliyaan wallahi runaantii taas waa nasiib darro inta badan waa wax dhaco waxaan aragno aabayaasha qaar inay ka tagaan ilmahooda maadaama xaaska isku dhaceen qaar waxaa laga yaabaa inay oga tagayaan buuq iyo dhibaatooyina kaaga imaanin qaarna waxaa laga yaabaa inay isleeyihin naagta maadaama ay ku nacday ilmihiina kuma rabaan saasay oga tagayaan si walbaba ha ahaato waxaa mar walba wanaagsan hooyadana inay dhankeeda ka dadaasho oo isku xirto ilmihii aabbahooda aabbahana inuu dhankiisa ka dadaalo oo carruurtiisa soo raadsado maxaa yeele mas-uuliyad baa ka saaran ama ha la noolaado ama ha ka maqnaado mar walba ilaah baa loo weydiin doona marka waxaa maanta qodobada ugu muhiimsan aan ka hadlaynaa waxay tahay sheekh cumar oo nagala hadlaayay waalidiinta inay muhiim u tahay mar walba labada waalid inay ilmahooda noloshooda ku jiraan mar walbo hooyaduna muhiim ayay u tahay aabbihina muhiim ayuu u yahay marka labada waalid waxaa loo baahan mar walba inay isgarab istaagaan ee ugu fikiraan mustaqbalka ilmahooda hooda hadday dhammaato ilmaha in laga fikiro ilmaha waxay u baahan yihiin dhaqan hooyana u baahan yihiin dhaqan aabuna u baahan yihiin especially markaa wiilan haysatid waxaa u baahan tahay qof ay fiirsadaan ay arkaan oo role model u noqdo soo sheekh cumar noo sheegay wiilashu waxay badanaa fiiriyaan aabbahooda soo u dhaqmi lahaa aabbahooda suu yahay ayay mar walba ka fiirsadaan mar walba laakiin guriga haddii mar walba hooyo keliga ay joogto cunugii ma arkaayo marka aabbe iyo nin wuxuu yahay ma fahmaya cunuga mar walba marka isku daya maxaa ku dar lahayd marka in ilmaha ay helaan qof nin ah ay ilmaha ku daydaan mar walba sababta badanaa programyada hadda la sameeyo oo Washington laga sameeyo waxaa la isku dayaa
si kasoo qaad sida dheekeradoo kale waxaa marab lagu dhiirageliyaa waalidiinta dheekerka u furan yahay inay dheekerkooda kusoo daraan niman inay meesha ka shaqeeyaan si ilmaha ay hayaan ee u arkaan nin meesha joogo ee wax uga bartaan. maasha allah barnaamijkaas waa barnaamij muhiim ah khaasatan dadka madowga ah ama soomaalida ha noqoto ama african american ha noqoto dadka madowga inta badan fursad uma helaan aabbaha inuu helo tababaro ama maaragtay resources caawin kara in uu yani aabbo wanaagsan noqdo. inta badan qaarkood waa la xiraa cabsiya ku dhammaadaan, qaarkood yani waa la kala tagaa reerii way kala ordaan oo ninkii reero kale iska raadsaa. marka ilmihii yaryaraha ayaa meesha ku dhomaaya. marka ani waxaan dhihi lahaa xataa wiilasha keliya maahane gabadha xataa waxay u baahan tahay nin role model ah oo aabbaheed ah oo mar walba jeceyl tuso, mar walba maaragtay wanaag kula dhaqmo, si marka nimanka kale banaanka joogay baalada ah oo maaragtay isku daya gabadhii inay maaragtay caqliga ka xadaan, inay maaragtay ay dareento inay waxa ay sheegayaan ayna ahayn wax cusub oo ay hore u soo maqashay, hore u soo aragtay, nin uu nolosheeda ka mid ahaa oo wax ku cusub ayna ahayn, aabbaheed ay jeceshahay, ninka ugu horreey ay jeclaatay maaragtay ay waqti la qaadatay oo maaragtay qalbiyan ay u jeclayd yani mogtahay ay. marka taasoo kale waxyaaba badan ay ka caawinaysaa. sidoo kale wiilasha marka ay arkaan yani qof nin raga oo noloshooda ku dhex jiro, xataa hadduu dhaw waxaan ha samaynin waxaan sameey waa laga yaaba inuu maqlo, laakiin hooyada mararka qaar mar hadduu teenager noqdo hadalka ma maqla inta badan, ilmaha way ku madax adeegaan, hooyadiina waa iska naxariis badan tahay. ilmihii hadduu madax adeego waxay isku dayaysaa inay maaragtay incentify samayso, ay wax u iibiso, wax u gadgado. dhibaatadaasna waxay laga yaaba inay kusii hogaamiso inuu dad kale dhibaateeyo. marka insha allahu tacaala maxaana wax yar inaan ku dar wuxuu hadda Sheekh Cumar ka hadlay oo hooyooyinka markay ilmaha la joogaan ilmaha badanaa waxay u raadiyaan way sasabaan ilmaha sida aabbaha markuu yahay. ilmaha badan aabbaha ma sasabo, hadduu cunug wax kala sameeyo qaladku sameeyo cunug wuxuu yahay tusaa cunug, laakiin waa maamada ilmihii way badbarye way tutooge si naxariis ay u keento. marmar qaarkood waxaa jirta ilmaha naxariis ma rabaan, waxay u baahan yihiin indho kulul iyo waalid adag. labada waalid haddii hal waalid ilmaha soo koriyaan marka ilmihii jiljilaaci waalidkaas ku soo koraa. marka waxaa loo baahan yahay muhiimadda waxay tahay aabbo walba inuu ilmihiis ka warheeyo, hooyada haddii ilmaha u jilicsan tahay waalidka aabbaha iyo adkaanin maaha, aabbaha inuu adkaado waa loo baahan yahay, inuu jilicsanaado waa loo baahan yahay. maraa jirta inuu adkaado ay tahay iyo mar loo baahan yahay inuu jilicsanaado. marka programkeeni waa waxa community ka jiro aan rabno inaan kala share gareeno si ilmaha samarkan bilaabanaayo ee labada waalid waqti u wada qaataan, ee ilmihii waqti u wada geliyaan. qasama inay labada waalid isku wada raacaan, laakiin qof walba waqtigiisa inuu geliyo ilmahaas waqti loo helo si labada waalid noloshooda ay uga mid noqdaan ilmahooda. waxaan noogu soo banaanidi Sheekh Cumar maadaama aad sheegtay samarka xilligiisa in ilmaha waqti la geliyo, waxaan haynaa barnaamij loogu talagalay carruurta oo lagu bari doono diinta islaamka, caqiidadooda in ilaahay lagu xiro. tan kale waxaan haynaa barnaamijka waxa uu ka koobnaan doonaa barnaamij ilmaha field trip oo educational maaragtay meelo oo ay wax ku bartaan, sida meelahan oo kale inaan keenno maaragtay inaan geyno meelo kale oo ka duwan oo ilmaha wax ka soo baran karaan. xilliga samarka inaan mashquulino, inay sports ciyaaraan wax la mida. marka ilmaha annaga haddaan mashquulinayno waalidiintiin waxaan u baahannahay support inay nagu sameeyaan, ilmahoodii keenaan, aan nala shaqeyno, aan caawino insha allahu tacaala. insha allah waa maqasheen programkan cusub oo Sheekh Cumar wado wuxuu ku yaalaa siyaara laga furay, xafiisku wuxuu ku yaalaa kasoo horjeedka masaajidka Oromada, wuxuu ku dhegan yahay Somali Community Building ku dhegan. buildingkaas ku yaalaa insha allah wixii faahfaahinayna waxaa idinku soo qori doonaa qaybta hoose oo videoga. wixii subscribe like iyo idea idinka dhinaciina waaye, iyo ismaqal dambo iyo isarag dambo iyo program dambo xiiso leh insha allah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.